kadib go'aankii gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ee ka ganaaxida 15 xubnood fadhiga baarlamaanka iyo ka hor imaanshaha go'aankaas ee ka yimid 15 xildhibaan waxaa la filayaa inuu furmo kulan ay isugu imaanayaan golaha shacabka. waxaa la dhigay ciidamo wadooyinka gala golaha shacabka si loo xaqiijiyo ammaanka guud, waxaana wadooyinka qaar jiray jaam fara badan oo waxaad arkaysaa in gaadiidka qaar ay isticmaalayaan xaafadaha, waxaana shacabka indhaha ku wada hayaan sida ay fadhiga u xaadiri karaan xildhibaanada uu ganaaxay gudoomiyaha golaha shacabka kadib foodadii ka dhacday xarunta golaha shacabka. xildhibaanada mucaaradka ayaa ku doodaya in la sameynayo muddo kordhin 2 sano ah, inkastoo ajandaha gudoomiyaha aysan ku cadeen arrinkan oo ay ku doodayaan xubnaha mucaaradka, balse dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in xubnaha siyaasiyiinta qaar ay sabab u yihiin dhibaatooyinka ay la daaladhacayaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho. waxaana hadda shacabka indhaha ay ku wada hayaan natiijada ka dhalan karta fadhiga maanta ee sababta u noqday in dad badan cagahooda ay maalaan, qaarna ay caqabad ku noqoto helitaanka nolol maalmeedkooda. cabdinaasir socdaal, raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, magaalada Muqdisho.